مسلمك كرلها كدغو مسلمك كرلها كدغو فرانسيسكا oo caayis u banaheeni maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxaan leenahay السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن أخيار تقيمها يقدرين تنقمضا مرور بو أدوكا كجوكتين مقع منصب كجعيل في حسابي وضاونيسان أيان يكو سلامية وديار قروة مقال عصب مقال كينا عصب وحو كساب سنين حاضر تكدع دون مقالة المقدشو دولة موحبي كوكتها عرين كاسي maxaytahay sawaha ay u dhacayaan arrinkaasi iyo qodobo kale ayaa barnaamijkeena ku daawan doontaan anigoo saxaafada lagu socodsiinaya cishirkeena aad naga daawanaysaan waxaa lagu wadaa maalinta berita in magaalada muqdisho uu ka dhaco banaanbax aad u xoogan oo ay soo abaabuleen maamulka gobolka banaadir laakiin ay fasax ka haystaan madaxda waddanka Soomaaliya dibadbaxani ayaa la sheegay in looga soo horjeedo gaf dhawaan uu u geystay madaxweynaha waddanka Faransiiska nabigeena suuban sallallahu alayhi wa sallam dibadbaxani oo ka dhici doono qaybo ka mid ah magaalada tani muqdisho isla markaana shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho dhamaantood ay isku soo bixi doonaan ayaa waxa ay dawladdu ku aasteeyeen in maalinta berita ay ku beegan tahay maalintii uu dhashay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyadoo taas ay jirta ayaa waxa ku lamaanan dhalashada nabi maxamed fantasiya loo sameyn doono banaanbax ay dhigi doonaan shacabka gobolka banaadir iyo gobolada waddanka Soomaaliya waxaana badankiis ay ka soo horjeedaan sida caalamku ugu soo horjeestayba gaf uu dhawaan madaxweynaha waddanka Faransiiska u geystay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam banaanbaxyadan lagu wado maalinta berita inay ka dhacaan magaalada muqdisho ayaa horey waxay ugu dhaceen wadamo ka tirsan caalamka sida waddanka Turkiga iyo waliba waddanka Pakistan oo ay dad badan isu soo baxeen isla markaana ay cadeeyeen inay diyaar u yihiin in ay gacan iyo afba ku difaacaan nabigeena suuban sallallahu alayhi wa sallam madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa dhawaan hadal ugu gafay nabigeena suuban sallallahu alayhi wa sallam waxa ka xanaaqay ama ka carooday dhammaan wadamada islaamka haba ugu xoog badnaada dawladda waddanka Turkiga madaxweynaha waddanka Turkiga oo khudbad u jeedinaya shacab aad u fara badan oo isu soo baxaya sheegay in uu difaacayo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam wadamada islaamka oo idilna uu waajib ka saaran yahay inay difaacaan nabigooda waxaana lagu wadaa in Turkiga uu ka dhaco banaanbax aad u weyn oo isku soo bixi doonaan shacabka waddanka Turkiga oo idil taamid lamid ayaa iyana lagu wadaa maalinta berita in magaalada muqdisho ay ka dhacdo hadaba wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dawladda ayaa warqad ay soo saartay waxay maalinta berita ku fasaxday dhammaan shaqaalihii dawladda waxayna kula talisay goobaha sida gaarka loo leeyahay iyaguna in maalinta berita ay fasaxaan si looga wada qayb galo xuska maalinta dhalashada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyo waliba dibadbaxani looga soo horjeedo hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska haddaba warqadan ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa waxay u qorneyd sidan warqadda oo ay soo saartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada isla markaana xafiiska agaasimaha guud uu ka soo baxay ayaa waxa ay u qorneyd sidan ku dhammaan hay'adaha dawladda og waa guddiga qaranka shaqaalaha rayidka dawladda og wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada og xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya og baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya og xafiiska madaxweynaha ujeedo fasax maalinta dhalashada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayadoo weyneynaysa rasuulkeena suuban naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxay ogeysiinaysaa dhammaan shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha gaarka in ay tahay maalinta Khamiista taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha Mawlid 1442 hijriyada ee dhalashada nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ay yihiin shaqaalaha fasax kuna beegan 29ka bisha 10aad 2020 iyadoo la weyneynayo dhalashada rasuulkeena suuban sida uu qabo sharciga shaqada waxaa la fasaxay shaqaalaha oo dhan qiimaha iyo qadarinta ay maalintaasi leedahay sidaa daraadeed waxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ugu hambalyeynaysaa shaqaale weynaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta dhalashada nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee
waxaana warqadani ku saxiixnay agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdillaahi Maxamed Cali. dhanka kale waxaa jiray hadallo ay isdhaafsadeen madaxweynaha waddanka Faransiiska iyo kan Turkiga, waxaana hadalladaasi uu ahaa mid qiiro geliyay dhammaan wadamada islaamka markii laga reebo wadamada carabta oo arrimahaani ka gaabsaday. dhawaanahanba wadamada carabta waxaa lagu eedeynayay in arrimaha islaamka iyo gefka loo geysanaya Nabi Maxamed ay ka gaabsadaan, taasoo sababteeda lagu sheegay xiriirada ay la leeyihiin dowladaha waddanka Mareykanka iyo Yahuudda. isku soo wada duub banaanbaxan berita magaalada Muqdisho ka dhici doono ayaa waxaa shacabka ay ka dhursugayaan qaabka uu noqon doono, iyadoo uu qof waliba ku faraxsan yahay inuu ka qayb galo. dhanka kale warar haatan naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in samada lagu arkay wax xidigna ka weyn binla ka yar oo soo baxay xilligii maqribka ka hor, taasoo fajac ku abuurtay dhammaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. marqura ayaa waxaa isku soo baxay dadka magaalada Muqdisho, waxayna wada eegayeen samada iyagoo la fajacsan waxaan samada ka soo baxay xilli aan maqrib la gaarin. waxaa hore loo arki jiray qorax madoobaad, dayax gacmeed iyo waxyaabo iyada la mid ah, laakiin tani way ka duwan tahay. waxa ayna ku soo aadaysaa xilli wadamada islaamka caalamka ay ka naxeen hadal aflagaada ah oo dhawaan ka soo yeeray dowladda waddanka Faransiiska mas'uul ugu sareeya. sidoo kale waddanka Faransiiska warbaahinada caalamka ayaa hadal hayo in mid ka mid ah dekedaha ugu weyn waddankaasi uu dab xoogan u qabsaday, waxayna arrinkan ka dhalatay oo musiibada ah kadib markii madaxweynaha waddankaasi uu gafay nabigeena suuban naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaa suuragala kuwa ka waaweyn inay dhacaan maadaama caalamka haatan uu ku soo baraarugay in ay yiraahdaan waa xorriyatul qowl in Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee aflagaado loo geysto. wadamo badan oo muslimiina sida wadamada carabtana ay arrinkaasi ka gaabsadeen. haddaba daawade idinka ayaan idin weydiinaya, xorriyatul qowlka muxuu yahay? maxaa loola jeedaa? micnihiisu ma wuxuu yahay in wax walba la isaga hadlo, xitaa wax diinteenna wax u dhimaya? maxayse tahay mas'uuliyadda ummadda muslimiinta caalamka ka saaran in ay ka dhiidhiyaan gafafka gaalada caalamka ay u geysanayaan diinteena suuban iyo aflagaadada Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee? ma habboon tahay in muslimiinta caalamku arrinkaasi ay ka aamusaan ama ay ka gaabsadaan? maxaase lagu tilmaami karaa ciddii ka gaabsato aflagaado shakhsi gaala uu u geystay nabigeena sallallahu alayhi wasallam? I am very sorry, the President of France, since he was against of our Islam. As we all of us, we are Islam, or we are not taking for his violence, for our against, for our religion. As we know, there are many religions in this world, but the religion of Islam is the only religion that we can say is the true in this world. We can say of us as we are Muslim, and we can't tolerate the President of violence. asagaan codkii muslimiinta ayaa chance u siiyay inuu madaxweyne ka noqdo waddanka Faransiiska. maantayna inuu hadallada noocan yiraahdo waxa ku keenay baa la yiraahdaa kooxda midigta fog ayuu cod ka raadinayaa, wuxuu rabaa inuu mar dambe soo sharaxo. waxaan leenahay muslimiinta sidii ardayga halka iga horeeyay dareenkiisa ugu cabiray inay ka soo horjeestaan, macnaheedu ma aha in dagaal iyo xabad iyo rabshad la sameeyo, laakiin qalinka ayaa lagu soo horjeesan karaa iyo Emmanuel Macron inuu wax cod ah helin oo dhulka lagu jiido goobta doorashada. korolaha ka dhigo muslinga, korolaha ka dhigo muslinga, korolaha ka dhigo gaalada laha jabsho, yahuuda laha jabsho. ninka caayay nabigeena ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka jaaseey, ilaahay ha ka jaaseey nabigeena Maxamed ha korolaha ka dhigo. dadka shaqeyntii nabiga Allah ya faqaraha isugu soo baxay dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. waddankaani waad ogtihiin muddo dheer dhibaatuu ku jiray, dhibka innagaa u geysanay, innagaa isdulminay, innagaa isdhibaataynay, innagaa isxasidnay, innagaa islaynay. maanta bacadka waxaan ugu soo baxnay u taagannahay ilaahay dartiis iyo maxabbada rasuulka. walaalayaal waxaan idinku baaqayaa, waxaan idiin soo jeedinayaa ilaahay dartiis maanta inaanu isku xafino, islaamku meeluu joogo isku xafiyo, soomaalidu isku xafiso. ma isxafiseen? ma ila qaadateen Soomaaliya xarunteedii ee nabadgelyada laga faafin lahaa ee masaalixda Soomaaliya loogu yeelay halkan inay noqoto maada Soomaaliya ay kala badho meel Soomaaliya ku heshiisay ugu horeysay maanta maxabbada rasuulka iyo haddii ilaahay
inaan yoomkaa faraxa badan faraxno wixii xunaareen wixii wanaagsan islaamna isku soo baxnay taas baan ugu baaqayaa waxaan leeyahay halkaan nuurka ka baxa Soomaaliya ha gaaro halkaan nabadda ka baxdana Soomaaliya ha gaadho Soomaaliya dhabarkeenu ka kala goynaadeen reer mudugnaay dhabarka Soomaaliya inaas ku kabnaa mihiga inta ayaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal barnaamijkan ugu hadlayay banaanbax lagu wado maalinta Britain oo ka dhaco magaalada Muqdisho waxa halkan idinkaga soo jeedinayay waa Maxamed Saciid Saxaab waxaadna si toos uga daawanaysaan cishka kumila dib intaynu mid lacayn barnaamijyada noocan oo kale u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sama sameeyo salaama idinna waad ku maastiin daawashada barnaamijkan